بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. waxaa jirta aadaab laga doonayo qofka saa'imka ahi inuu la yimaado marka uu anfurayo. waxaa ugu horreysa qofka saa'imka ahi inuu dedejiyo afurka marba haddii uu xaqiiqsaday ama uu maqlay aadaankii salaada maqrib. nabiguna sal allahu alay wasalam wuxuu leeyahay laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfitra. ummaddu khayr kama zuulayaan inta ay ka dedejinayaan afurka. idan aadaanka haddii aad maqashid amaba aad xaqiiqsatid qoraxdii in ay dhacday, waxaa la doonayaa in aad afka furtid oo aadan sii wadin soomkii. waxay ka mid tahay taasi sunnada nabiga sal alla alay waslm noo jideeyey iyo aadaabta iftaarka. sidoo kale nabiga sal allau alay wasalam wuxuuna baray aadaab ah marka aynu anfurayno inaynu ku bilowno timir inaan afka ku furno. anas radi allahu canhu xadiid saxiixa wuxuu rasuulka ka wariyey salawatullahi wasalaamu calayhi. wuxuu yihi rasuulku marka qoraxdu ay dhacdo salaada ka hor inta uu salaadii maqrib uusan tukan, rutabaad timirta nooceeda bilowga ah intaysan aada u bislaan ayuu ku bilaabi jiray calayhi salaatu wassalaam. haddii uusan helin rutubaatna sal alla alay wasalam wuxuu ku bilaabi jiray timir caadiya. haddii timir uusan helinna nabigu sal allau alay wasalam wuxuu kaban jiray biyo aan badnayn ayuu cabi jiray, kadib ayuu markaas tukan jiray, kadib ayuu afuri jiray. marka waxaa aadaabta ah ama sunnada ah qofkii inuu ku afuro afkiisa ku bilaabo timirta. midda saddexaad waxa weeye waxaa aadaabta ka mid ah sunnada ka mid ah qofku markuu afurayo inuu akriyo ducadaas oo rasuulka sal alla alay wasalam uuna baray oo oran jiray nabiguna sal ly sl markuu afurayo dahaba aldama'u wabtallat alcuruuqu wa habata alajru in sha allah. ilahi subxana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu soomkeenna iyo dhammaan cibaadadeena naga aqbalo. wajazakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.